السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. channel كان naga daawaneysaan waa studio Sale 24 oo walaalkeen Ilyas Daacad waxaan idin kala gelinaynaa labadii maalmood aan channel kan waxna soo dhigin maanta waxa ka hadli doonaa warbixin kooban oo ku saabsan actor-ka lagu magacaabo Pawan Kalyan oo fanka Telugu-ga aad loogu yaqaan. Pawan Kalyan waa mid kamid ah actor-rada ugu caansan fanka Telugu-ga isagoo kamid aha halyayada u soo halgamay inuu kor u qaado fanka Telugu-ga. Sanadkii 2001 Pawan waxa uu xilligaas ahaa actor-ka ugu awoodda badan box office-ka isagoo sanadkan sameeyay aflaamo waaweyn sida filimka Qoshi. Filimkan waxa Pawan u maalgeliyay ninka lagu magacaabo Amrathaman. Kadib filimkaas waxa ay labadan iskala soo shaqeeyeen aflaamo waaweyn. Dhawaan Pawan ayaa wuxuu u saxiixday film action ah kaasi oo soo saaray ka yahay Amrathaman halka uu director ka yahay ninkii Pawan uu sameeyay filimkii Qoshi ee SJ Surya lagu magacaabo. Kadib markii si la yaab leh ugu dhawaaqay inuu iska joojiyay film jilista sidoo kalena uu ku biiray siyaasadda. Hadda Pawan Kalyan ayaa waxa uu la hadlay Amrathaman iyo SJ Surya isagoo ka codsaday inay filimkaasi hogaamiye ka dhigaan wiilku adeerku u yahay Saider Mantij kaasoo kamid ah actor-rada dhalinyarada kuwooda ugu caansan. Sidoo kalena Amrathaman ayaa sheegay in hadda mashruucan ay ku wareejiyeen Saider Mantij maadaama aysan diidi karin hadalka actor-ka Pawan Kalyan. Pawan inkasta oo jilista aflaamta iska joojiyay haddana waxa uu Amrathaman u ballan qaaday inuu filimkan u xayeysiin doono marka la gaaro daawashadiisa. fadlan channelka hadda ku cusub tahay subscribe saar like garay waxay noo tahay dhiirigelin. fadlan videoga noo share garay fikradahaada nala wadaag commentiga noogu soo reeb fikradaada waa noo muhiim. waxaana mar dhow dabka inoo soo saaran Karan Dool oo lagu soo aanbixinayo filim cusub oo goor dhow soo wado wiilku dhalay sanad dool ee kula jirta atrishada Suheer oo ayadana fanka ay ku cusub tahay lagu soo aanbixinayo filimka balbal dilke baas. filimkaas ayaa dabka inoo saaran aan warbixin ka bixin doonaa. waxaa kaloo idin soo diyaarin doonaa insha Allah taala fiidiyoodii aan noogu barateen musalsalkii ficil aan ka sameyn jirnay youtuberada isla markaasi isku dhacsan ama isdagaalsan iskhilaafsan sida filimada hore aan ka sameynay Idrisla Abdi CK iyo Xasan Toob iyo balbalaarka. youtuberada kuwaad xiiseynaysan in laga sameeyo filim waxaad ugu reebaysan commentiga si aan wax idin xiisi geliyo in ku soo sameeyno isla markaasi. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.